dowladda deegaanka Soomaalidu waa deegaan ka mid ah dalweynaha Itoobiya waa deegaan leh kheyraad dabiici ah webiyo dooxooyin iyo dhul ballaaran oo dihina waxaana xuduudo la leeyahay dowlad deegaanka Soomaalidu dalka Soomaaliya Djibouti Kenya ismaamulka Dirdhabe iyo sidoo kale deegaanada dalka sida Anfarta iyo deegaanka Oromiya waxaana dhidbada loo taagay saddexdii hay'adood ee dawladdu ka koobneed ee ahaa sharci dejinta sharci fulinta iyo hay'adda garsoorka taasoo deegaanka uu yeeshay golo baarlamaan iyo madaxweyne rasmi ah waxaana kalfadhigii koowaad ee golaha xildhibaanada deegaanka Soomaalidu uu ka qabsoomay magaalada Dirdhabe gaar ahaan howlka shirarka ee ku yaala xaafadda saddexaad ee magaaladaasi Dirdhabe haddaba sanadkan aanu ku jirno ayaa waxaa golaha wasiirada dowladda deegaanka Soomaalidu ay ansixiyeen una asteeyeen in la xuso maalintii la aasaasay dowlad deegaanka Soomaalida haddaba daawadayaal waxaanu waraysi la yeelanay anagoo ku duulayna xuska aasaaska maalintii la aasaasay dowlad deegaanka Soomaalida waxaanan wax ka weydiinay fanaaniinta iyo shacabka iyo sidoo kale shaqaalaha dawladda ahmiyadda ay leedahay xuskani in la xuso ahmiyadu in buuleeyay bulshada waayo waxaa jiro deegaankeena maalinta 9 gobol buu ahaa maalintii kilkana la aasaasay wixii halka lagu soo gaaray ee la qoondeeyay ee la yiri meelhebla kil liibaan afdheer qorraxay sidan jigjiga aduu isku soo duub city oo waaga shinil loo 9 gobol bahay kadib gobolada ku soo biiray 11 gobol bay noqdeen hadda marka waxaa jira dad maalinta aan joogin oo kadib dhashay oo ciida ka badan baa jiro haddana shaqaale dawladeed maalinta kilka la aasaasay dadkaasi ma aysan jirin maantana dawladda u shaqeeyaan waxaa dhacday qaarkood inay waliba agaasimiyo wasiirro noqdeen xuskan maalinta deegaanka markii ugu horeysay la xusayo waxaan u arkaa guul weyn oo soo hoytay deegaanka guul weyn oo soo hoytay ummad waliba waxay leedahay maalmo gaar ah oo ay xusto oo taariikhda lagu soo daro waxaan u arkaa anigu maalin aad iyo aad loo baahnaa horey loogu baahnaa in la qabto oo soo daahday baan u arkaa waana ku faraxsanahay soo dhaweynay aad baan soo dhaweynay dhammaan xuska deegaanka aasaaska waa wax weyn kulay annaga ahaan ka deegaan ahaan wuxuu noogu fadhiyaa kulay waa wax weyn barashadiisa iyo in la ogaado micnaha dad fara badan oo waxa jira iminka deegaanka ku nool oo u dhashay baanan garanay marka inay ogaadaan xilliga waqtiga la aasaasay ayaa waxay la tahay micnaha wax weyn oo dadka u soo biiro ay u kordhay xuska dowlad deegaanka Soomaalida taariikh 23 Janwariga aad baan ku faraxsanahay waan soo dhaweynaynaa waa wax faa'iido noo ah horumara lagu faraxsan yahay aniga shakhsiyaantaydana waan ku faraxsanahay waan soo dhaweynaynaa labada gacmood baan ku soo dhaweynaynaa faa'iido inuu leeyahay magaaladeena waad aragtaa calankeena waad aragtaa alxamdulillah shukri nabadgelyadeena magaaladeena say u egtahay waad aragtaa caalamka aan ka mid nahay Itoobiya ka mid nahay waxaa looga baahan yahay horta shay walba dhaca ama xaalad walba waa inay maalin leedahay lagu xasuusto ama taariikh runtii anu waxaan aaminsanahay qofkii maanta hindisay isagu maanta xasuustay in uu yahay qof hal abuur leh wax weyn oo xasuustay caalamka dhacda ilmaha habeenku ku dhashay baa xusitaan loo sameeyaa iyo maalin xafladeed iyo wixii loo sameeyaa maxay ahayday xaalad walba adduunka ka dhacda xus baa loo sameeyaa laakiin wakilil dhan maalintii aan xuquuqdeena Itoobiya aan ka helay eenu aasaasnay een dawlad samaysanay een wasiirro samaysanay een baarlamaan anagu aanu madax banaano heer deegaan samaysanay een madaxweyne samaysanay si dimuqraadiyada lagu soo doorto xuquuqda ilaa xilal salaasi mingista mililiq aan weynay ma ayaanti aan helay inaanu xusuusan weyno badownimo ahayd runtii ahmiyadu weyn bay noo leedahay maalinta inay sanad walba la xusaan anigu waliba ku talin lahaa arrinta hadan yar soo koobo dul istaago mugdi baa laga baxay bay ahayd mugdi deegaanku mugdi buu ku jiray dhibaatooyin badan oo aan la soo koobi karin baa haystay marka koobaad waa maalintii la helay bay ahayd magaca Soomaali lagu dhawaaqay waayo kama jirin in la yiraahdo bariga Itoobiya loo jiray dawlad deegaanka Soomaalida markii la yiraahdo magii koobaad ee magaca Soomaalida la aqoonsaday Itoobiya gudaheeda laga aqoonsaday ka wadani ahaan wixii wadaniyadu ku farayso
وقصب إنها تسميسها إني وقرشيان إني مالين وقرشيان sidoo kale in mataqaanaa maalinka iyada loo si diyaar garoobo la isku xidhnaado qurba joogaan iyo qaran joogtiga muhiimadda koowaad waxa looga baahan yahay in nabadgelyada la adkeeyo midda kale darbiyaasha dhanba ama magaalada dhanba la bedelo si fiican nadaafadana loo ilaaliyo la qurxiyo wadooyinka guriyaasha everything marka guud ahaan dawladdeegaanka Soomaalida in maaragtay kulli xuskan insha Allah ta'ala si fiican loo adkeeyo kor loo qaado ayaan kulli anigu waan soo dhaweynaa baan leeyahay inay xuska weyneeyaan nadaafada ku dadaalaan nabadgelyada ku dadaalaan in la xuso la weyneeyo la jeclaado ayaan u sheegaya dadka noocaas ayuu u fududeynayaa in maalinta joogin in ay bartaan kililkan maalintii la asaasay ay ka shaqeynayaan ama ay ku dhaxdhasheen maalintuu asaasmay noloshan iyo xuquuqdan iyo isbeddelkan iyo dimuqraadiyadan xilligay soo gaadhay ee heleen bini'aadamku bulshada deegaankana inay bartaan faa'iidadaas u leedahay waan joogay waa markii koobaad waxay ahayd magacayna la xusanay marka waxa faraqa u dhaxeeyay ayadoo magacaaga adduunka wax weey xaqqa koobaad ku leedahay waa magac baad ku leedahay magac baad horta ku leedahay adduunka waxa xaqqa koobaad adduunka ku leedahay waa maxay bilaa adiga shakhsiyan ba ka soo qaad magac weeyaan haddaad magac lahayna marka xaqi koobaad ee lahayn baa wuxuu ahaa magaca Soomaaliyeed deegaanka Soomaalida bariga Itoobiya loo dhigay dhibaatooyin wixii ku hoos duugnaana lama soo koobi karo waan soo joogaanu wadan kaba inaan waxa loo jiray waa markay heesaan soo baxeen deegaanka u qaad oo heestan waxa kamid ah maxay olognimadu waa daris olognimadu waa daris iyo ooda wada taal arrimahan iswada galay sidanaha Itoobiya Oromada iyo Soomaalida anfarta iyo dadka hereerida Tigreega iyo Gambeelaha Ahmarada iyo Benishaangulkiyo ummadda koonfureed intuba waa wala heesaha ka mid aha farayaa bulshada u dhalatay dawladda deegaanka Soomaalida ee qurba joog iyo qaran joogba maalintani in la isugu imaado oo dal iyo dibadda la isugu imaado caasimadda deegaanka Soomaalidana lagu xuso gobol walba iyo degmo walba iyo qabalo walba iyo shantar walba iyo geeg walba hoostiina lagu xuso sanad walbana la xuso ayaan anigu ku talin lahaa taasaan ugu baaqayaa waa maalintiini waa maalinteeni waa maalintii aanu nolosha helay macnaha aan Itoobiya aan wax ku yeelanay ee noqonay dad Itoobiya كل شروع حقوق كل عن نقطة. استعلنك حل جابه يدنا ولا سمية هي الرياضي هذا ما حسوسته يدنا مركب ولا سمية أو وحيل حديد يسي مركب ده محمل لقبه بدل لكن هي سي وحيل حديد يسي على كالقال لي وعقله كم بدأ هي سان كلا ديجان كالجو ما قبل الله لقى هذا ليو هي سب بدن بحل جا صوب حي مقالة در دبا أنتي يا هوش السعودي أيام كسرناي أو kooxda ku sugnayd anigu markaa maalinta markaa waan ka dambeeyay mar raacin laakiin galli bay halka ku sugnaayeen markii hore horyaal baandi bay ahayd laakiin markii deegaanka ururo badan baa jiray oo la mideeyay magaca Soomaalida oo dawlad deegaan la xusay ayaa kooxduna ilays baandi lagu magacaabay waa halkii lagu soo magacaabay kadib aan ugu soo qayb galay marka saas bay ahayd waxaan u dirayaa fariinta xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida ee macsan horta aad baad u maasantiin nidaamkan daahidisay xukuumada badan oo idan ka horeeyay waxyaabo naga babcan bay xusi jireen oo waxay xusi jireen ibaar maalin maxay dhigi jireen maxay gumbada hayaaba la xusi jiray maxay baa la xusi jiray galab waxba la xusi jiray laakiin tii annaga taas Itoobiya la qabnay laakiin tii annaga noo gaarka ahayd ee annaga xuquuqdeena gaarkeeda hadda ka hor wax xusuustay oo xusay ma uusan jirin ee ahmiyaddeena khaaskayd aad baad ugu maasantiin xukuumaddeena haddaad bointiga idinku aad maanta xusuusteen in badan oo aad ku mahadinaynaa halkaan ka sii wada idan leh bulshada deegaanka Soomaalida waxaan u dirayaa xuska asaaska deegaanku waa maalin ahmiyad inoo leh inaga deegaan ahaan inoo leh marka saas daraadeed waa maalin
mudan in la soo dhaweeyo waa maalin mataqaanaa mudan in adduunka oo dhan la ogeysiiyo saas daraadeed marka waxaan fariintan u gudbinayo waxay tahay in macnaha maalinka ayada la isku kaashado qurba joogtadana waxaan fariin farayaa in ayaguna ay ka qayb qaataan gacan ku siiyaan meel kastoo ay joogaan xuskaan iyagu ay xusaan ayaan kulli anigu aan soo dhawaynayaa bulshadana inay dadaalaan oo iyagu ay kulli si fiican ka qayb qaataan ayaan anigu aan soo dhawaynayaa dee qurba joogta inay waddankooda dhistaan oo maal gashadaan oo imaadaan oo iyaguna inala weyneeyaan wakaa dhanka dumarka dee dumarku way shaqaynayaan waanu dadaalnaa waxaan u shaqaynaa waa waddanka wax baan soo gelinaa cashuur baan soo gelinaa maasha allah waanu shaqaynaa waan ka qayb qaadanaynaa haddee hooyooyinkii baanu anagu goday baa la tegey haddana oo goday baa loo guuray markii dambena dib baa jigjigo loogu soo noqday markaa isku soo wada duub lama odhan karo nacam waxa isbeddelka dhacay dee waddankaba waa laga maqnaa maalintan baa lagu soo hoyday maalinta ismaamul la oggolaaday noo gaara waa maalintii waddankaba lagu soo noqday wey dadkeenu qaxooti bay ku maqnaayeen marka waxaan odhan lahaa bulshada waxay u leedahay horumarkaa la gaadhay ahmiyadda u leedahay wey xorriyad bay u leedahay jiritaankeyga dee waxa la qabtayna maanta lama soo koobi karo jiritaanka ummadeedba dee wixii la qabtayna hadda lama soo koobi karo weliba 5 sano u dambaysay dee lama odhan karo dee xawliga macnaha horumarku ku socdo wax la soo koobi karo maaha marka bulshada waxaan odhan lahaa ha loo diyaar garoobo yar iyo weyn maalintaa in la weyneeyo goob kaste gobol kaste degmo kaste ha loo diyaar garoobo yaa waxgarad iyo waayeel culimo iyo dhammaanba waa in loo diyaar garoobo dhammaanba waa in looga diyaar garoobo bulshadu inay iyagoo faraxsan meel walba inay qurxiyaan meel walba inay uga diyaar garoobaan inay u sameeyaan xafladdaas sidii loo maamuusi lahaa in naf iyo hanti iyo maamulba lagu bixiyo wey juhdi badan in la geliyo weyaan aan u soo jeedinayaa dadweynaha ummadda soomaaliyeed ee deegaanka ku nool waxaan leeyahay soo dhoweeya waa maalintii iftiinka aan maanta ku naaloonayna iyo maamulka aan haysanno iyo horumarka aan hellay wey markaa waxaan leeyahay waa maalin ka duwan maalmaha kaloo dhan inuu nooga duwan wey iyaguna waxaan odhanayaa meel kastoo ay joogaan waa inay maalintan xusaan iyaguna u diyaar garoobaan meelaha ay joogaan inay ku xusaan kuwa dibadaha joogaa inay dibadaha ku xusaan kuwa dalka joogaan inay dalka ku xusaan waa maalin aan horay inoo soo marin wey ciidamada booliska waxaa looga baahan yahay nabadgelyada inay ilaaliyaan oo ay dadka maaragtay maalintan ay tusaan iyaguna ma garanaysaa ay shaqadooda labanlaabaan ta kale inay ilaaliyaan dadka dabaaldegaya ama xuska u diyaar garoobaya inay amnigooga sugaan ilaaliyaanna ayaan xukuumaddana waxaa looga baahan yahay iyaduna inay sidaasoo kale weynayso oo meelihii lagu qaban lahaa ummadda u diyaariso diyaar baanu annaga lafteedu diyaar garowgii baan ku jirnaa hadda waad madaxda ka soo kaxaysay annagoo samaynayna barnaamijkii xuskaas